gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka xubnaha golayaasha dowladda gudoomiye ku-xigeenka gobolka gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa degmada bulshada reer isku shuban dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan marka u horeysa rabaa inaan halka uga tacsiyeeyo dhammaan dadka reer isku shuban geeridii ku timid nabadoon cabdi cali geesood allah u naxariisto oo ah nabadoon qaali ku ah dhammaan deegaanada soomaalida gaar ahaan gobolka bari iyo magaalada isku shuban. intaa markaan ka tago runtii waxaan ka cudur daaranaynaa daahidda aan soo daahnay xilligii aan rabnay inaan imaano maxaa yeelay deegaano aada u fara badanna waa soo marnay dad u ooman inay mas-uuliyiintooda ay la kulmaan oo la sheekaystaanna way ahaayeen. xilligaas aad aragteen saaka aroortii sidaan usoo baxnay bay ahayd dhulka oo dheer deegaano fara badan oo soo marnay marka runtii waa mudnaydeen waqti aada u dheer inaan la qaadano. waxaanse ballan qaadayaa ilaahay idankiis inaan magaaladan kusoo noqnoqon doono mar kalena imaan doono haddii ilaahay. markii xafiiska laga gaariyey iyadoon bil ka soo wareegan shaqooyinkii ugu horreeyay aan qabto waxaa ka mid ahaa degmadan isku shuban inay yeelato consul si ay u hesho mashaariicda ay ka xaniban tahay maadaama magaaladani ay tahay magaalo taariikhiya oo fac weyn oo degmooyin badan oo puntland maanta leedahay iyadu dhashay. waxaan aada uga xumaa inaysan fursadahaas ka faa'iidaysan horumarkaas ka socday puntland meelo eber ah oo hadda intii hadda burburka kadib daartii ugu horreysay laga dhisay baa maanta ka waaweynaaday. iyadii degmada qaadatay 1935tiina dibadhac weyn baa ku jira. arrintaas waa arrin u baahan hoos in loo fiiriyo. dabcan dhaliisha maamuladii iyo madaxdii keliya ma leh laakiin degmada dadkeeduna qeyb bay ka leeyihiin dhaliishaas oo u baahan in dhaliishaas si saxa la isugu sheego. waxay la tahay waqti waa naga tegay laakiin gadaal buu waqtigu u badan yahay weli fursad baynu haysanaa. sidaas oo tahay consulkaas laguma guulaysan laakiin waxaa ilaahay mahadiisa barnaamijkan hadda dimuqraadiyadda marka laga sheekeyn doono 25 kadib markuu ilaahay si idankiis si nabada noogu qabsoomo waxaa qeyb ka ahaan doonta in 6 degmo oo degmooyinka puntland ka mid ah oo dadkeedu ay consulkii ku heshiin waayeen oo habkii consullada loo dhisi jiray ku heshiin waayeen inay maanta diyaar u yihiin inay consul ay doorteen dadka oo dhan u yeelan doonaan haddii ilaahay isku shubanna ka mid tahay. waxaa ka mid a isku shuban waxaa ka mid a carmo oo magaalo weyn noqotay waxaa ka mid a waaciye waxaa ka mid a murcanya waxaa ka mid a xingalool waxaa ka mid a bursaalax. waa 6 degmo oo wada waaweyn laakiin laguma guulaysan. dowladduna waa isku dayday kuwii ugu horreeyeen waa isku dayeen intaanay xafiiska joogana intaba waa la isku dayay in wax laga qabto laakiin waa lagu guulaysan waay. marka barnaamijkani wuxuu ka dulqaadayaa odayaasheeni dhaqanka xujo iyo culays badan oo haystay ay wax ku qaban lahaayeen iyagoo ay ku adkaatay doonidda dadka si ay u maareeyaan inay waayaan. laakiin maanta 3 degmoo hadda la dhisay waxaad ogtihiin degmada qardho hannaankii wax lagu qaybsan jiro dhan wuu isbedelay waa ka warqabtaa. haddana cid ka qaylisa ma jirto. eyl sidoo kaleeto haddana cid ka qaylisa ma leh maxaa yeelay qanaacay waxay ku qabaan dadku wixii ay goostaan ay helaan. waxaa arrintaas marka waa wax ummaduhu ku horumareen annaguna waxaan rabnaa sida ummadaha u horumartay inaan u horumarno. marka mashruuca dimuqraadiyaddu horumar ayuu keeni. wuxuu kaloo keeni qofka la doorto 2 mas-uuliyad baa ka dhalanaya. qofka la doortana hadda waa qof wax gubayaan oo cid buu cod weydiisto waqti geliyey wuxuu dareemayaa mas-uuliyad inuu wax ku qabto ah. kan wax doortana wuxuu helayaa fursad uu ku xisaabtamo. awal si uu la hadlo ma garanin. waxaan si gaara halka rabaa inaan uga salaamo
عاقل من دما يوهم سعبدا يورت دما يميا عاقل دما يه runtii khudbaddii ugu xigmadda badneed ugu fiicneed baa halka jeediyey dhaliilihii uu ii soo jeediyey waxna waa ka jiraan qaybna waxaa laga yaabaa inuusan xog badan hayn laakiin waa qaadanaya wuxuu soo jeediyey oo dhan wixii aan bi'inay intaan dowladda joognay uu hagaajiyey naga ahayd waxa uu maamulku markaa hagaajinaya waxaa laga yaabaa dadku inaysan arkaynin sidoo kale waxaa dhici karta wax si aan u aragnay oo khalad ah iyadana waa dhici kartaa marka iyadana ma diidanin inaan khaldami karno oo bini aadan baa u nahay laakiin dimuqraadiyaddu waxay na tusinaysaa in la wada hadlo oo wax laysu sheego oo la dhaliilo oo la isdhaliilo ururada mucaaradka inay isdhaliilaan waxay ku fiican yihiin inay soo bandhigaan kan kale wuxuu ku liitay inuu ifiyo si aan codka loo siin waa sidaas ceeb ma noqonaysa marka haddii la dhaliilo urur dhaliilo ama isagu mid is ammaano waa bij cusub oo noo furmay oo dadka fursad u siinayo inay yeeshaan khiyaaraad ay kala doortaan awal waxay ahayd qofku ma lahayn wuxuu kala doorto soo ma hadda fursad wuxuu helayaa hadduu ururkani waxaas ku fiican yahay kana muxuu ku fiican yahay degmo walba dadkay soo xilatay urur walba waa la eegayaa baahidiina ma ka turjumi karaan mise kama turjumi karaan hadda marxaladii hore wuxuu ahaa liis xiran hadda xoogaa waa la rogayoo seejooyinka dad baa lagu qoray qofku wuxuu leeyahay khiyaaraad uu kala dooran doono haddii ilaahay waxaa kaloo fursad u helayaan dhallinyaradu in ay qof ay rabaan soo saaraan waxaa dhici karta hadda ururadu siday wax u xulxulayeen weli in habkii bulshadu u dhisnayd ay qiimeynayeen laakiin tantan ku xigta taa way ka duwanaan doontaa kabtankii kooxdu halka ka hadlay muxuu ahaa dayib hadda golayaasha la xulay ma ku jirtaa talow meel ma ku jirtaa mise meel lakuma jirti meel lakuma jirta maaha waa lagaa ilduufay marka waa ninkaan oo kaleeto in lasoo saaray ahayd marka ya dadka wax u qabanayo oo aragti iyo vision leh ayay u baahan tahay dad baahida dhallinyarada fahmaya dad baahida gabdhaha fahmaya dad baahida odayaasha fahmaya dabcan kah waan dadaalnay intii karaankeenna ah oo odayaasha qayb baa ku jira gabdhaha qayb baa ku jira sida shiin oo kaleeto waxyaabaha u sameynayna waxa weeye wax naga gadmi karna inaan dadka u keenno si uu u noqdo urur dadkaan u adeega oo himilada aan lahayn fulin kara waxyaabaha aad tabaysaan waxay ku imaan karaan hab dowladnimo habka dowladnimadana meesha ka aasaasanto waxa weeye golaha degaanka golo degaana oo lasoo doortay oo sharciyad haysta oo aan rabitaanka madaxda markaa xilka joogta ku imaan hadday isqoonsadaanna ay aayar kala diri jireen sida dhici jirta ama xilka qaadi jireen